Sheekada dhex martay Cristiano Ronaldo iyo Sir Alex Ferguson waa mid ka mid ah sheekooyinka ugu caansan uguna qadarinta badan taariikhda kubadda cagta. Xiriirkoodu ma ahayn mid macallin iyo ciyaaryahan oo kaliya, balse wuxuu ahaa mid u dhow xiriir aabe iyo wiilkiisa. Haddaba waxaan idinkaga soo diyaariyey qodobada ugu muhiimsan sheekadooda. Hase yeeshee is-xasuusin, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo. Mahadsanid. Aan u sii gudgalno muuqaalkeena. Qodobkeena ugu horeeya, kulankii isbeddelka sameeyey 2003. Sheekadu waxay si dhab ah u bilaabatay bishii Agoost 2003 markii Manchester United ay ciyaar saaxiibtinimo la dheeshay kooxda Sporting Lisbon. Ronaldo oo markaas ahaa 18 jir ayaa burburiyey daafacyada United. Ciyaartooyda United ayaa Ferguson ka codsaday inuu soo iibsado wiilkan da'da yar. Ferguson wuxuu diiday inuu garoonka ka tago isagoo aan saxiixa Ronaldo helin, isagoo ku adkaystay inuu isla habeenkaas Manchester u raaco lambarka 7 iyo kalsoonidii. Markii Ronaldo uu yimid United, wuxuu rabay lambarka 28 ee uu Sporting u xiran jiray, laakiin Ferguson ayaa ku amray, maya, waxaad xiranaysaa lambarka 7. Tani waxay ahayd fariin muujinaysa inuu Ferguson ku kalsoonaa in Ronaldo uu buuxin karo kaalintii halyeeyadii hore ee lambarkaas soo xirtay, sida Eric Cantona iyo David Beckham. 3. Aabbaha garoonka dhexdiisa. Ferguson wuxuu ahaa qofka dhisay anshaxa iyo xoogga Ronaldo. Waxaa la sheegaa in Ferguson uu u ogolaan jiray daafacyada United sida Rio Ferdinand iyo Roy Keane inay tababarka ku harantiyaan Ronaldo si uu u barto adkaysiga. Wuxuu ku bari jiray inuu kubadda dhiibo halkii uu iska xariifeyn lahaa kaliya. 4. Dhacdadii dhimashada aabbaha Ronaldo ee 2005. Tani waa markii uu xiriirkoodu noqday mid qoys. Markii aabbaha dhalay Ronaldo uu aad u xanuunsaday, United waxay ku jirtay xil ciyaareed xasaasi ah. Ronaldo wuxuu yiri, Ferguson wuxuu iigu yeeray xafiiskiisa, wuxuuna igu yiri, Cristiano, tag meesha aad rabto, hadday tahay maalin, 2 maalin ama usbuuc. Waan ognahay waan ku tabi doonaa, laakiin aabbaha ayaa muhiimsan. Ronaldo marnaba ma ilaabin naxariistaas uu Ferguson u muujiyey xilli kooxdu u baahneed. 5. Ku biiridii Real Madrid ee 2009. Markii Ronaldo uu rabay inuu ku biiro Real Madrid sanadkii 2008, Ferguson ayaa wuxuu ka codsaday inuu 1 sano oo kale sii joogo si uu si sharaf leh uga tago kooxda. Ronaldo waa uu ka aqbalay. 2009 Ferguson wuxuu u oggolaaday inuu ku biiro Madrid, isagoo u arkayay inuu wiilkiisii u dirayo meeshii uu ku noqon lahaa kan adduunka ugu fiican. 6. Soo laabashadii Manchester United ee 2021. Xitaa markii uu Ronaldo weynaaday, Ferguson saameyntiisu ma dhammaan. Sanadkii 2021 markii uu Ronaldo ku dhawaa inuu ku biiro kooxda Manchester City, hal wicitaan oo ka yimid Sir Alex Ferguson ayaa beddelay wax kasta. Ferguson ayaa ku yiri Cristiano Ronaldo ha ku biirin Manchester City. Ronaldo ayaana isla markiiba doortay inuu ku laabto gurigiisii hore ee Old Trafford. Haddaba waxaynu soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii sheekadeena. Cristiano Ronaldo mar walba wuxuu Ferguson ugu yeeraa aabahayga kubadda cagta. Xiriirkoodu wuxuu tusaale u yahay sida hogaamiye wanaagsan uu qof dhalinyaro ah u beddeli karo xidig caalami ah, isagoo isticmaalaya edbin iyo naxariis isku dhaf ah. Haddaba saaxiibayaal, waxaan si naxariis leh idinkaga codsanayaa, haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale like saar muuqaalkan oo u share garay saaxiibadaada jecel inay dhageystaan sheekooyinka dhexmara ciyaartooyda